u yimid nabiga sala allahu calayhi wasalam, markaasuu wuxuu ku dhahay ii dardaaran. nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku dhahay markaas laa taqdab, ha caroonin. faradada miraaran, hadalka ahmiyadda ay leedahay daraaddiisa ayuu nabiga sala allahu calayhi wasalam uu ku celceliyey laa taqdab, ha caroonin. xadiiskan waxaa soo saaray bukhaari min xadiis abi hurayra radi allahu canhu. xadiiskan waxay ka mid tahay min mucjizaati nabiy sala allahu calayhi wasalam, mucjizaadka nabiga la siiyey inuu ku hadli jira hadal yar laakiin micno weyn ay leedahay. sidoo kale xadiiskan culamada qaar waxay ku tilmaamaan inuu yahay rubcul islaam, 4 meelood meel inuu yahay, ahmiyad ay leedahay awgii. sidoo kale culamada qaar waxay dhahaan shar oo dhan waxay ka bilaabataa 2, shahwada iyo carada qofka hadduu yani mar caroodo waxay u furtaa ilbaab yani weyn, ilbaab oo xumaan dhan ay u furtaa. waa inuu marka iska ilaaliya carada si fudud yani qofka inuu ugu soo gelin.